13 nooc oo dadka ka mid ah oo aan ilaahay soonkooda aqbalin. ilaahayna waxaan baryaynaa 13ka inaynan ka mid noqon. 13ka nooc qofka u horeeyay waa qofkii ku dhaca camal uu ilaahay ugu shirki yeelayo. allana wuxuu leeyahay layna ashrakta la yaxbadanna camaluka wala takunanna min alkhaasiriin. in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. aayadahaasi waxay tilmaamayaan qofku acmaal shirkiya hadduu ku dhaco wuxuu dooniba ha ahaadee inaan ilaahay acmaashiisa aqbalin. sinfiga labaad ama nooca labaad waa almunaafiquun. haba la kala qaado nifaaq ictiqaadiya iyo nifaaq camaliya culimmadu ha u kala qaadaan, laakiin qofkii nifaaq ku dhaca oo waxa ka muuqda iyo wuxuu qarinayaa ay kala duwanaadaan oo ku sifooba sifaadka lagu yaqaan dadka munaafiqiinta ah, isagana acmaashiisa ilaahay aqbali maayo, soonkiisana ilaahay aqbali maayo. sidaan mushrigga ilaahay soonkiisa u aqbalaynin ayaan munaafiqana ilaahay waxba uga aqbalin, waayo ilaah baa ballan qaaday, wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar. dabaqa u hooseeye u liita ayay naarta ku leeyihiin. xitaa naarta caadiga ah wax kuma lehe, dabaqa u hooseeye ugu xun bay ku leeyihiin. qolada saddexaad waa taariku salaa. taariku salaa, salaada hadduu uga tago isagoo inkiray fardiyadeeda, isaga oo aan oggolayn oo diiday inuu kaafir yahay, cidna iskuma khilaafin. laakiin markuu takaasul iyo waxbaa wax loo sheegay, hadduu taariku salaad yahay malcuun weeye, ilaahay acmaashiisa ma aqbalo. waayo salaada iyo maxaanku dhahdaa soonka iyo acmaasha salaada ayaa ugu lafdhabarsan, oo salaadu waxa weeye waa diinta lafdhabarteedii, bal ilaahay iimaankuba inuu iyada yahay buu ku tilmaamay. man aqaamaha faqad aqaama addiin waman hadamaha faqad hadama addiin. salaada qofka toosiyaa diintii buu oogay uu toosiyey, qofka dumiyaana diintii oo dhan buu dumiyey. qofka afraad waa qofka salaada marna ka taga marna tukada. ahlulcilmigu waxay idhaahdeen waxaynu eegaynaa dhinaca uu u badan yahay. hadduu salaad la'aanta u badan yahay waxaynu haleeshiinaynaa taariku salaa, soonkiisana ilaahay aqbali mahayo. qofka shanaad, ka lixaad iyo ka toddobaad xadiid buu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam, uu leeyahay alaaatun, saddex dadka ka mida laa yanduru allaahu ilayhim, ilaahay waxa weeye il naxariiseed kuma eego, qiyaamada uma naxariisto, acmaashoodana ma aqbalo. walaa yusakiihim, uma dembi dhaafo, dembi kama dahiro. walahum cadaabun aliim, cadaab mu'lima bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin. waa maxay saddexdaasi waxa weeye caaqun liwaalidayhi, waa qof labadiisa waalid caasi ku ah oo waalid caasiya. qofka labaad waxa weeye waa qof mukadibun bilqadara. qofka saddexaad oo qadarta ilaahay buu beeninayaayo wixii ilaahay qadaray baanu raalli ka noqonaynin. wixii ilaahay u qadaro raalli kuma aha. hadduu xoolo yar yahay, hadduu xanuun ku dhacay, hadday wax si ka noqdeen, qadar ilaahay baa si ugu dhacday, qadarta ilaahay raalli kama aha. ilaahay acmaashiisa isagana aqbali mahayo, ilaahay acmaashiisa loo koryeeli mahayo. qofkan saddexaad waa qofka manna sheegadka iyo abaal sheegadka badan, oo wuxuu bixiyo aan ka aamusaynina mar walba soo celinaya, isagoo sheeganaya inuu hebel intaas siiyayo hebel intaas siiyayo. ilaahay wuxuu leeyahay laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu riyaaa annaasi walaa yu'minu billaah. sadaqaadkiin iyo wanaaggiinna abaal sheegadka ha ku burinina. hebel anaa siiyey, hebel anaa u qabtay, hebel wixii buu badsanayaa, ayuu buunbuuninayaa, ayuu sheeganayaa inuu dadka isagu wax siiyey. toddobadaasna saddexdaa ugu dambaysa xadiidkaas ayaa lagu sheegay. qofka sideedaad waxa weeye almustahzi biddiin. markii niman munaafiqiin ahaa ay diinta ku jeesjeeseen, oo nebigaoo safaradiisii mid ka mida ku jira intuu dad ahlu qur'aana karaameeyey, ay ahlu qur'aankii xanteen oo yidhaahdeen kuwan qur'aanka xifdisan marka wax la cunaya maxaa ka caloolo weyn, marka dagaal la gala maxaa ka fulaysan oo ka carariyo, ayuu ilaahay ku yidhi walain sa'altahum layaquuluuna inamaa kunna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahziyuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. alistihzaa biddiin qofku inuu diinta ilaahay ku jeesjeeso
ilaahay ku jeesjeeso rasuulkiisa ku jeesjeeso aayaadkiisa ku jeesjeesaay waa wax millada lagaga baxayo waana wax qofka camalkiisii ku burayo naar ku mudanayo wey mas'alada saddexaad waxa weeye qofku inuu intisaabo fi'a daalla sida qaadiyaaniya iyo axmediya iyo qolyo aaminsan in nebi moxamed nebi ka dambeeyey la soo saaray oo kale firqa dibadda ka joogta diinta oo bidca mukafira la timid qofku inuu u nusreeyo oo dulmiga iyo xumaanta iyo fisqiga ay samaynayaan uu ugu nusreeyo ayaa iyadana waxa weeye wuxuu ku mudan qofku soonkiisii iyo acmaashiisii iyo sadaqadiisii iyo saa'iru acmaalihi inaan ilaahay aqbalin waxa weeye qofka tobnaad waa qof la yimid nawaaqid alislaam wax burinaya diintiisii ama qowl ha ahaado ama ficil ha ahaado waxyaabo diintii uu kaga kufriyaya buu la yimid ilaahay waxba ka aqbali mahay saddexda qof ee 11 iyo 12 iyo 13 nabigu xadiis buu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi thalathatun saddex qof oo dadka ka mida laa yaqbalu allahu minhum sarfan walaa cadla ilaahay sunne iyo farad midnaba kama aqbalo saddex qof oo dadka ka mida oo bani aadamka ka mida saddexdaasi waa maxay almaliku alkadaab qof mas-uulahoo dad u taliya oo madaxweyne ah oo maalintii la arkaba been sheegahay qofka 11aad waxa weeye ashaykhu zani waa qof odaya ama qof weyn oo habarah oo islaam weyna ama qof weyn oo odaya oo haddana macsiyada xun ee liidata ee dankiga iyo dacfiga iyo faaxishada aan marna ka dhowrsanayn qofka 13aad waxa weeye caahilul mustakbir qof waxa weeye faqiira laakiin faqiirnimadiisa wuxuu ku darsaday inuu mufsid yahay kibirsan yahay madax taag badan yahay isla weynaan badan yahay inuu ku jiro ixtiqaaru annaas badaru lxaqi wa gamdi nnaas nabigu tuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye istikbaar waa mujaawasat alxuduud weeye qofku inuu xuduudda gudbo tawaaduca ka tago dadka inuu la siman yahay uu dadka isdheeraysiiyo uu dadka iska weyneeyo oo uu mustakbir yahay iyadana acmaashiisa lama aqbalo oo soonkiisa la aqbali mahay dadka aynu tilmaannay acmaashoodu waxay ka dhigan tahay hal bacaad lagu lisay wey hal bacaad lagu lisay oo meel bacaada inta la joojiyey oo la godlay la lisay laga sugi mahayo inay caana dhiiqda iyo inay ku xumbayso bacaadka iyo in khayr laga faa'iido toona qofka soomaya acmaashiisu ay sidaa tahay isagana waxba ka faa'iidi mahayo soonkiisaas waxaan ilaahay ka rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa 13 qolo qof inaga midihi inaanu ku sifoobin addaalu cala alkhayri ka faacilihi وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين